السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبيال kusoo dhawaada mar kale iyo Fantasy Premier League barnaamijkan uga hadlaynay waxaad nagala socotaan Astaan Sports iyo channelkeena YouTube-ka ee FPL Somali waa anigoo ah Daahir Cabdil Cali iyo mar kale oo aan ka hadlayno isbuuc ciyaareedka 35aad ee noo soo gabagabay ayaa waxaa la ciyaaray kulamadii ugu dheeraa abid tan iyo xilli ciyaareedkii 2006 waxaana saddex kulan ciyaartay kooxda Manchester United oo laba kulan kamid ah kulamadii ayaga ahaa laga badiyay kaliya waxay badisay kulankii Aston Villa oo ay 3-1 kaga soo badisay isbuuc ciyaareedkan waxaa jiro ciyaartooy min laba kulan ciyaaray oo dhibco badan keenay waxaana ciyaaryahanka ugu dhibco badan toddobaadkan noqday ciyaaryahanka u ciyaara kooxda Arsenal ee lagu magacaabo Smith Rowe isagoo dhaliyay kulankii Arsenal ay 3-1 kaga badisay West Brom iyo kulankii Arsenal ay 1-0 kaga badisay kooxda Chelsea oo guuldaro la kulantay labadaas kulan maadaama uu min gool dhaliyay sidoo kalena uu helay dhibcaha shabaq ilaashashada maadaama uu yahay qad dhexe sidoo kalena dhibcihii saddexda dheeraadka ahaa uu ka helay kulankii Chelsea kulanka West Brom uu gool dhaliyay sidaas ayaa waxa uu ku helay dhibco gaaraya 19 dhibcood waxaa jiro ciyaaryahanno kale oo dhibco gaaraya 19 ka keenay laakiin Smith Rowe ayaa maadaama uusan la kulmin gool daro dhaxdana uu si fiican u ciyaaray oo chance abuurista iyo markii la raacashada waxyaabahaas oo dhan uu ku badnaa sidaas uu ku noqday ciyaaryahanka uu dhibcaha badan toddobaadkan marka si guud ciyaaryahanka goolayaha ee ugu dhibca badan toddobaadkan wuxuu noqday ciyaaryahanka kooxda Everton Jordan Pickford oo labadii kulan ee ciyaarayba shabaqiisa ilaashaday kulankii hore wuxuu ahaa West Ham oo shabaqa uu ka ilaashaday oo Everton ay 1-0 ku basay iyo kulankii kale Aston Villa iyo ay isku arkeen Everton oo 1-0 ku soo dhamaaday ciyaaryahan Godfrey oo ay saaxiib yihiin Pickford oo ciyaara kooxda Everton ayaa isna keenay dhibco gaaraya 18 dhibcood isagoo kulankii la ciyaartay kulankii West Ham sameeyay caawin maadaama caawin uu sameeyay shabaqana uu ilaashaday dhibco gaaray 18 dhibcood ayuu keenay ciyaaryahanka kale waa Alexander Arnold oo asna keenay 16 dhibcood Alexander Arnold labadii kulan u ciyaaray kulankii hore ee Southampton ay ka badiyeen shabaqiisa ayuu ilaashaday meeshana wuxuu ka helay dhibco dheeraad oo hal ah kulankii kale ay Manchester United ay ka badisay kooxda Liverpool oo 4-2 ay ku badisay kooxda Liverpool waxa uu sameeyay laba caawin sidaasna waxa uu ka helay 6 dhibcood markii la isku dardarana wuxuu helay 16 dhibcood ciyaaraanka kale waa Digne oo asna ciyaara kooxda Everton oo keenay 14 dhibcood Smith Rowe oo aan ka soo hadalnay oo ah ciyaaraanka ugu dhibco badan ayaa keenay 19 dhibcood dhinaca khadka dhexe waxaa ku xiga Mason Greenwood oo ciyaara kooxda Manchester United oo keenay 19 dhibcood Mason Greenwood kulankii Aston Villa ay ka hor imaadeen Manchester United gool ayuu dhaliyay kulankii kale hal gadaal ayaa laga keenay oo waxa uu ciyaaray 27 dhibcood oo kaliya kulankii Leicesterna wuxuu ciyaaray 65 daqiiqo dhibco 8 gaaraya ayuu ka helay maadaama gool kale uu dhaliyay sidaas ayuuna ku keenay 19 dhibcood Esbereki Eze oo aan toddobaadkan kaga hadalnay barnaamijkeeni aan ugu dambeeyay aan kaga hadlaynay isbuuc ciyaareedkan 35aad ayaa wuxuu keenay 14 dhibcood 16 dhibcood aan iraahday waxa ku xiga Albrighton oo u ciyaara kooxda Leicester City oo keenay dhibco gaaraya 15 dhibcood Albrighton kulamadii u ciyaaray mid kamid ah ay gool dhaliyay sidaas ayuuna dhibcahan uu ku helay maadaama khad dhexe uu yahay ciyaaraanka kale waa Firmino kulankii Southampton ay ka badiyeen caawin ayuu sameeyay kulankii kalena laba gool ay Manchester United ka dhaliyay sidaas ayuuna ku helay dhibco dheeraadka ahaa waxa uuna si guud u helay 17 dhibcood ciyaaraanka kale ee khadka dhinaca weerarka ee dhibcaha ugu badnaa keenay waa Christian Benteke oo laba gool dhaliyay kulamadii labada ahaa ee ciyaaray waa kulanka uu ka hor imaaday kooxda Sheffield United oo la xaqiijiyay inay u laabatay horyaalka heerka labaad iyo kulankii ay Southampton iyo Crystal Palace iyo guuldarada ay kala kulantay oo uu hal gool dhaliyay Christian Benteke sidaas ayuu ku keenay 15 dhibcood si guud marka dhibcaha guud ee la keenay toddobaadkan waa 180
haddii aan fiirino marka toddobaadka soo socda ee isbuuc ciyaareedka aan dhammaystirnayn maadaama kulamo hore loo soo hormariyey oo isbuuc ciyaareedka hadda naga dhammaaday la ciyaaray, kulamo yar ayaa la ciyaari doonaa. kulamadaasna waxaa ugu soo horeeya kulanka kooxda Manchester City ee uga hor imaanaysa kooxda Newcastle. waxaa ku xiga Burnley iyo Leeds, Southampton iyo Fulham oo is arki doona, Brighton iyo West Ham oo ayagana is arki doona. maalinta Axadda ah oo kooxaha Crystal Palace iyo Aston Villa is arki doonaan, Tottenham iyo Wolves oo ayagana iska hor imaan doona, West Brom iyo Liverpool iyo Everton oo martigelinaysa kooxda Sheffield United. haddii aan fiirino marka kulamadaasi waxa laga filan karo iyo ciyaaryahanada la isdhihi karo waa lagu tashan karaa. waxaa ugu horeeya kulanka Manchester City ay ku hor imaanayso Newcastle. waxaa ugu horeeya ciyaaryahanka kooxda Manchester City ee Riyad Mahrez iyo Phil Foden. labada ciyaaryahan ee toddobaadkan la isdhihi karo dhibco ayaa laga keeni karaa maadaama kooxaha qaar aysan ciyaari doonin sida Chelsea iyo Leicester City aysan ciyaari doonin oo kulankii FA Cup-ka ay ciyaari doonaan. waxaa la isdhihi karaa meeshaasi waa meel dhibco laga keeni karo. ciyaaryahan Phil Foden qaab ciyaareedkiisu aad ayuu wanaagsan yahay. waxa uu muujiyey sida uu kooxda Pep Guardiola ugu yahay muhiim. sidoo kale Riyad Mahrez oo dhinaca Champions League aad iyo aad u soo ciyaaray. waxaan xasuusanaa Riyad Mahrez sidoo kale inuu isbuuc ciyaareedkii ugu dambeeyey dhibcaha ugu badan uu keenay. dhinaca kale ninka lagu magacaabo Stuart Dallas oo ka hor imaan doona kooxda Burnley ayaa isna ka mid ah ciyaaryahanada gool dhalintiisa maadaama uu asoo khad dhexe ah dhinaca FPL-kana u diiwaangashan inuu difaac yahay, ka mid ah ciyaaryahanada daafacyada ugu gool dhalinta badan marka FPL-ka la dhaho dhibco badan keenaya. Stuart Dallas waxa uu noqon karaa farqi cajiib ah haddii aad hore iskaga iibisay maadaama isbuuc ciyaareedka hadda lasoo dhaafay uusan ka mid ahayn uu ka mid noqday kuwii ugu badnaa ee kaydka la iska dhigo. sidaasna uu keenay 9 dhibcood oo maamulayaal badan oo kaydka dhigay uu kaga yaabsaday dhibco 9 dhibcood ah. haddii aad laakiin haysatay oo kaydka aad dhigtay oodan iska iibinin waa haysan kartaa, waana farqi cajiib ah oo dhibco badan aad uga tashan kartid. ciyaaryahanka kale waa Dominic Calvert-Lewin oo ciyaara kooxda Everton. waxa uu ka hor imaanayaa kooxda Sheffield United. Sheffield United oo aan ognahay sida ay hoos ugu degtay. Dominic Calvert-Lewin oo soo laabanaya oo gool soo dhaliyay isbuuc ciyaareedkii lasoo dhaafay ayaa asna wuxuu noqon karaa mid ka mid ah dhibcaha farqiga ah ee aad ku tashan kartid. ciyaaryahanka kale waa Chris Wood oo ciyaara kooxda Burnley. Chris Wood aad oogama hadlin laakiin waxaad moodaa inuu foomkiisa iyo qaab ciyaareedkiisa u wanaagsan yahay. kulamadii hadda ugu dambeeyayna dhibco ayuu keenay. haddii ciyaaryahanada qaar ay ka maqan yihiin oo dhinac sida hadda Manchester United ciyaaryahanada sida Chelsea ciyaaryahanada oo kale haddii ka maqan yihiin waxa uu noqon karaa farqi cajiib ah. waxaa kaloo ka mid ah Mikel Antonio oo hadda dhaawac ka soo laabanaya iyo Patrick Bamford oo isna qaab ciyaareedkiisu uu soo laabasho muujinayo maadaama uu gool u dhaliyay toddobaadkii hadda lasoo dhaafay. iyo haddii aan fiirino marka dhinaca kabtanka toddobaadkan kabtanadii aan uga baranay aan ku tashan jirnay waxaa kaliya hadda ciyaaraya Kane iyo Salah wuxuu ka hor imaanayaa kooxda West Brom. haddii toddobaadkii lasoo dhaafayna goolkii ugu dambeeyay ee Manchester United ee afar iyo 2 gool dare ay kala kulantay Liverpool ayuu dhaliyay. ninkaas waa kabtanka ugu macquulsan toddobaadkan la isdhihi karo dhibco muhiim ah ayaa looga tashan karaa. Harry Kane waan ognahay haddii mar uu soo laabtay isna waa kabtan macquul ah. waxaa ku xiga Dominic Calvert-Lewin oo Sheffield United ka hor imaanaya, waa kabtan asna lagu tashan karo. waxaa ku xiga oo kabtan farqi ah noqon kara Riyad Mahrez oo kooxda Newcastle ka hor imaanaya iyo ninka lagu magacaabo Gareth Bale oo iyagana markaan fiirino qaab ciyaareedkoodii ugu dambeeyay muujinayay dadaal dheeraad ah iyo Sadio Mane oo noqon kara kabtan farqi ah toddobaadka isbuuca 36 oo kulamo qaar aan la ciyaari doonin maadaama kulamadii ayaga ahaa hore loo hormariyay.
aad ay u mahadsantihiin saaxiibayaal. waxaan idin xasuusinayaa in FPL Soomaali aad kusoo biiri kartaan YouTube-ka, sidoo kale Facebook-ka, Twitter-ka, Instagram-ka aad nooga soo biiri kartaan. waxaan xasuusinayaa sidoo kale haddii aad subscribe saartay hore aad u saartay inaad notification-kana aad furato si aad u hesho muuqaalada aan soo duubno oo dhan. aad ay u mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.